إن فساد ذات البين هي الحالقة. dadka dhexdooda fidna laga sameeyo nin iyo wiilkiisa isku dirtay nin iyo xaaskiisa isku dirtay laba wada dhalata isku dirtay laba saaxiib isku dirtay laba qabiil isku dirtay laba famil isku dirtay fasad ذات البين هي الحالقة. ومد حيريس النبي يقول حيريس لا أقول تحلق شعر ولكن تحلق دين. أنا أقول ما يتم حيريس تم الله حيرة ملك ولكن تحلق الدين دين حيريس. قفك في النار كشقة يودتك يسكت درون مركز في النهورية دين الآن ويسون إيمان الآن بكون عايز قبض وح إيمانه أوليه مجد قفك مركو نميمة وركو كان وقفك الورك كاغس وقال وحلقات دونية هذا الكيس إن هذا الروماني مركا كوبا لأنه فاسق وي قفك دتك وركا وكلا قال هو فاسق. إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذي الوجهين ورسولك عليه الصلاة والسلام تذكر وحا أبشر بدن قيامها إلهي أدي سمتك لما وجي لها يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قال هذا نسيبه كل صعلا قال هذا نسيبه كل صعلا هذيك مركو كل صعلا من كل يجي صحيح وكاتك يا شيكات وكابريا وحي الله واحد إذا الأحمر والنم مقاضي يا حق وقيل كاس نساس كلهم بولا صعلا وذي الوجهين أد بدتك وبديك marka koobaad markuu ku sheego warka uu ku soo qaado horta marka koobaad ha rumaysan ilaanu faasiq way faasiqna warkiisa lama rumaysan marka labaad ka reebo waxa tiraaniyo waxa halka aad ii sheegaysa iska dhaaf ha ii keenin waxa mardaba marka saddexaad ilaahay dartii u nac ninkaas iska banaa maxay la dadka haduu xumaanta u kala qaad nackaas balaayo ka shaqeeya adiga warun buu ka qaadaya marka afraad walaalkaaga maqan ee xumaanta lagaaga soo sheegay adigu waxba aad ku ogeyn ninkan u balaayo kaaga sheegmad wuxuu kuma ogeyn marka hore saaxiibku ku waasama xumaan ha u malayn ila aad asaga wax ku aragto hadalkiisi dan ha ugu qaadan dan xun ha ugu qaadan xalay ninka shalay saaxiibka ahayd maanta wal balata war maxaa dhacay waan ku ogay waxa aad sameynayso tuug aan laga tuugsanay baba war wax maxaa dhacay ninkana waa iska lillaah illa kana balaayo ku sameeyay walaalkaaga maqan ee qaa'ibka ee awal caadiga ku ahaa xumaan ha u malayn midda shana tajassus yun kugu xumbaareen oo markii qofkii wax lagaaga sheego inaad hadda baarbaarto oo ceebihiisa raadisay kugu kalif sifada lixaad waxa weeye inaad uga raali noqonin way naftaada waxaad asaga ka nahays asaga waxaad tiri Soomaha war waxaan dadka warka loo kala qaado ma fiicna iska daa adigu marka iska ilaali sifada waa sifo xun saasa laga doonay markii war lagu soo qaado waxaa man namma minka namma ilayka man namma ilayka namma minka ninki adiga war ku soo qaado jaajuus ku soo noqdo adna warka uu ka qaadayaa adiga kaliya kuma shaqeeyo moogta adu maal qoranay lacag ma siisid Soomaa bilaash buu warku ugu keenaa Soomaa bilaash buu warkaaga qaadaya adiga ya ha u malayn inuu ixsaan ku sameeyay hal ninkan dabeecadiisa iyo shaqadiisa inuu warka qaado way warku raraab soo wax kale intaas ka bixin jira shaydaanki baa soo rartay nin salaf saalix kamida yaa nin uu imaado wuxuu yiri hebel baa sidaa kula markaas wuxuu ku yiri shaydaanku ma waayo boosta kale oo warqada ku dirsada adu boosta la ka dhigay Soomaa shaydaanka boostadiisa baa tawardi dhaaf xabaayis sheegay saasa la doonay lisaankaaga waa inaad ka ilaaliso aafaadkiisa waxa kamid ah ifshaa'u sirri wixii lagu siraystay inaad sheegin way faafin qofka haduu ku yiraahdo waxan waa sir way wixii adigu ha ka sheegin soo waa sir kumu dhina asagu ha iska faafiyo laakiin adigu waxba ka faafin wa rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam إذا تحدث الرجل منك هذا كوشة كي بالحديث شاكو ثم التفت ودنعيها اسكفيري فهي أمانة وأمانة إسكيلال مركو كوشة كي هذا لبضة دنع فيري وإذا هذا البان كوشة كي يقعنتك وقت حقه كلتك حقه اسكفيري سوما وهو أمانة هذا شيء هو عبسنا يا بسمان إن الله قد مقلوك يا بيا مركا أدوها كشيء أبو داود بحديث كورنية سنن كيسا كورنية قفك مسلم كأوحى للدنيا إنه سرت حفظيه وقفك ولالكيس المسلم كأونا سرت كفى في نوم
ودكتهين حديث وحكوسو أرورتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل إيسا حفصة مركي نقطي نينكي هذي بعد انتي قروب بين نقطي يوحو أبن لقيس أبو بكر قبل إذا حفصان كو قورين يا دارت شبو كيل أبو بكر جوابه معلم هينا مدين ما ينا مدين بان وقف ما ذي سيد عثمان بو هذا نو بندقي وان كسو فيرسنا يا سيد عثمان ما المملكو جوغ كدب او يمد وحي حد يعني waxaan ku aansaday hada waqtigan inaan guursan karin okay سيد عثمان marka uu u jawaabay marka horena waan ka soo fiirsan buu marka damana uu jawaabay Soomaa laakiin sida Abu Bakar shib uu ka yahay waan rabaana ma dheen mayna ma dheen sida Abu Bakar ma igu darnaa buu aamuska uu aamusan yahay ay gabadhaydan ku ikraamo waan ku siinayaa baan ku yiri markaas uu jawaabi socod maalmo markay ka soo wareegda nabiga gabadha soo dan alayhi salatu Hafsa bint Umar zawjada nabiga ma alayhi salatu nabiga bay gabadha waan rabaa walagu nikax mar alla markii uu nabigu gabadhiisa oo warsaday gabadhi la siiyay ayuu Abu Bakar u yimid Umar markaad gabadha Hafsa ay soo bandhigtay inaad wadi carar oo kula hadli waa jawaab ku celin waay wadi xumaataan ma leeyahay waxaan ku xumaan waayay burda wax jawaab wadi celisay ma leeyahay waxa igu kallifay midaqaal on kugu jawaabi waay gabadha waxaan ogaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo sheegay uu ii sheegay wuxuu yiri gabadhaas aan raba Hafsa sida Abu Bakar umadankii u khayr badnaabo haay uu ku sireystay rasuulku wuxuu yiri Hafsa doonay inaan Umar warsado marka waxaan diidayay buu yiri inaan sirta nabiga sheego oo ku yiraahdo war gabadha nabiga doonayay ninna ma ku siiyaa hadheena shibahow inaan hadaan iraado sirta nabiga inaan faafiyaan ka cabsanay haddaan mar bas weeye gabadha ku iraadana waxaan ka yaabay rasuulku inuu gabadha ka baxo hadduu ka noqdo uu yiraahdo waa iga bas inaan ku warsadaan rabay markii waxaan kugu jawaaban garan waayo ya haddaan sheegana sirta nabiga inaan sheegan diiday maya gabadhi waa iga bas waan dhii waayo hadduu rasuulku ka baxo gabadha Sayyid Umar uu dhalay inaan daayo mar rabina aan warsadaan doonay saasa ay u kaliftay aamus sirta say u xifdinayaan fi حتى كمون سيريسن ورقبض الرسول كشيء أمسنو حتى سر ومده إنه الرسول كسرت يسوع شيء جديد عليه الصلاة والسلام سرت إن هذا حدث وكذا ذا شو عربك لسانك آفات كيس وحكم إذا قف إنه سكحب دي لدونه شهادة الزور مرخاتب بيان أول والرسول قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما إذن شيء ذنبك كأبوي صدق قربك عليه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا حيراد بلا يا رسول الله نوشك رسولك إله قالوا فالنبي قال الإشراك بالله إله يقول له شريك قال نمو وعقوق الوالدين لبدي والد وعاقل قلنا لبضع الصفة مركو شيء وجلس نبي وصوف فرسته وكان متكئا أساس وجيفه وصوف فرسته فقال وحير ألا وقول الزور هي مرخات بيان ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور إلى أن رسولك عليه الصلاة والسلام وأن أغني مرخاتبنا له وأن أغني إنه وحن يهي مرء رسولكم وسك آمس عليه الصلاة والسلام وكل عليها نبي مرخاتبنا شهادة الزور وحاد أغني إنك كمرخاتك عدو بينا حديث مسلم البخاري بأورنا عباد الرحمن إله مركو تلمامي صفاتك إلهي وكتل ما محاكمة والذين لا يشهدون الزور وأكو عن بيانتك مرخاتك عين أدومها إلهي ونكسبون صفاتك ونكسب مع ربينات كده ذلك لسانك أغينات كإلى لسان الدنيا يا آفاتك وحاكمة القذف إنها تتك قذف قذف قوامك هو عين حنوة عي حن إنها تتك تراد قذف دنبي بيكو كده يعني حد بالقوية لنا يضف وحكوا عفنا ينمجد إلهي وحولي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين كوا يرمون المحصنات قبلها دورسون وحكشيني قبل دورسون والحمان بلهين الغافلات حمان تبه المانسان ولقد حمان أرد يحمان كشيني قذف وحالي إذا قفوا الزنا المشهد زاني باتهلين كوا قبلها والوناكسن قدفي
مؤمناتك رجع ونكسر النورسون ولا متكوى قطفة يحمان تكشجي لعنوا في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة والله لعنة إلهي لعنة ما كنا على كواس ولهم وحيليهم عذاب عظيم عذاب وين بإليهم بإله إليه رسولك وحليه صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه قف مؤمن قف في كشيء ما ليس فيه وحسن هين أسكنه الله ردقة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج قف مؤمن دنبي وصلهين وحمان قف في كشيء إلهي وحو قليا وكور بنا ردقة الخبال ومحي وأهل النار كعرم كودوا ذلك أهل النار كمركي العذاب والسقط إي عرم ككبح تاسع إلهي ورابنا إلى قدام بقاس كبح من كبح يا وليس إمام أحمد بحديث كسمن كيس كورنا ذلك يعني قذف كسمين أيوه وقف الزنا كل شيء وهبل وحمان له قف وزاني كان واسات قرني شرع الإسلام هو حكومة جبنا يا سيدات كرباش اللي قرفت إلى أوقفك عفية مويان سيدات كرباش اللي قرفت يشرع حكومة جبنا وحمر خاطئه تقول سنة ملك مرخاتنا ما قال قفكاس لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كو ددك وناكسن حمانت كشيغي يزينده كشيغي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أفر قفوا أنين ومرخاتي أن كيرين قف كانوا حمان بصمينين مرخاتين وما هي فاجلدوهم 80 جلدة سيديتا كرباش كل نفتا إلهي ولا تقبلوا لهم شهادة وحمر خاتي أنا هكا أقبلن أبدا ولي مرخاتي ما قالك فاسق والنقضي حد أسانا لقوا فينا قفك إنك عفية مويانا سيديتا كرباش بالو قول فرق مركا هذا الكم فضود ولا يسكورنا يوقف فضود ما هو وحكم إذا آفد اللسان كوليه إن العرب كإلى لسلدون اليمين الكاذبة دارت بينتها وحبال ويدينا يا حكم وحبال قبسنا يا مركز دار بين كل دارنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قفكي دارته قف مسلما مالكي سكو دارته بغير حقه waxba isku qabsadeen markaas oo dhaar been ku dhaartay laqiya allah wa huwa alayhi qadban ilaahay wuxuu qiyaamaha la kulmaya ilaahay oo carays ilaahay oo ku caraysan baa lagu horkeenaya liqawlihi ta'ala innal ladina yashtaruna bi'ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati kuwa dhaaranayo ahdiga ilaahay ثمنا قليلا كو قادنيا الهي دارتيسي مغع الهي باي waxay ku qaadanayaan wax yar daar baan ugu dhaaranay waa ku aakhira aan nasiib ku lahayn baa ilaahay wala cadaab ya kuwas wuxuu rasuulku leeyahay alayhi salatu wasalaam hadith sahiha wuxuu ku leeyahay man iqtada'a haqq imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allah lahu an-nar wa harrama alayhi al-jannah ninki qof muslima haqiisa qaato daar baan ana ku qaato wuu dhaartay waxbay isku qabsadeen qofkii xaq laha marxaati keen bal marxaati buu waay kii kala been ku dhaartay markaas Allah xukum faqad awjaba Allah lahu nar ilahi nar buu waajibiyo wa harrama alayhi aljanna jannana ilahi waa ka xarimay dadki majliska fadhiyeen kamid ah wuxuu yiri ya rasuulallah wa in kana shay'an yasiran wax yar bahan noqday haduu been ugu dhaarto nar buu waajibays qala wuxuu nabigu wa in qadiban min arak laan caday abaha noqdo rumaygan cadayga lagu cadayda baha noqdee hadduu been ugu dhaarto naar baa ilaahay waajibinaya yaxfudud ma hawla intee dad ay qaadanayaan dad kale xuquuq ay leeyihiin dhulkoodii bay qaadanayaan guryahoodii bay qaadanayaan wax uu maalkiisa oo dhan buu qaadanaya biqayr xaq buu ku qaadanaya te naar uma u diyaar asaguna waa inaan ilaahay ka cabsano walaalayaal lisaankeenan xibinkan waa inaan ilaalino carabkeenna waxa ka soo baxaya waa inaan ilaalino rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhibaatada uu leeyahay iyo carabkan sida uu u culus yahay weeye waxa uu uga digayo carabku nabigu sida uu qabanaya kufa calayka hada war carabka iska qabo lisaankaaga qabo iska ilaali buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadka waxa ugu khayrka badan qofka afkiisa hadalkiisa uu gaaban yahay
هذا الكيس محددية وحي وناقه لو يديه بوك جوابيا وحكى له تقف كيس كهذا الأمة وقف يا عم وقف هذا الكيرون قف هذا الكرب دمبي كما نبتقل لي مرنا لسان كان أن إلهنا ولا إلهي أنك بقنا سبحانه وتعالى واجب بنا سار مسؤولية بنا سار وحنكو هذا اللي نورنا ووحي إلهي نقول حساب دون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وحلا وحكو هذا الرقيب عتيد باقري بالقيامة ولا مصهر نجاي جنة وحلقو قالوا وحأبو خير بدن وتقوى إلهي حسن الخلق وحنار تلقو قالوا وحأبو بدن ولسانك إيه فرجيجو لسانك أن إلهنا إلهينا أنك بغنا ذكرك إلهي ضاع إلهي أنكو جذنا حبن كان إلهي نقول نعمينا إلهي نعمتي سأنكو جذنا إلهينا أنكو شكرنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن فساد ذات البين هي الحالقة تذكر نحن هذا فتنة لك السماء إن يويل كيسي باس قدرت إن يحاس كيسي باس قدرت لما وضع دلتاز